gudoomiyaad baa mahadsan tahay sidaa dhammaantiin ogtihiin waxaa mudana gudoomiye mudana wasiir iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha shirka waxaa maanta halkan jooga goobjoogayaashii maxalliga ahaa oo gaaraya ilaa 80 waxaa kaloo jooga goobjoogayaasha waqtiga dheer ayaguna shaqayn doona oo iyagana qayb ka ah waxay ka kala yimaadeen magaalooyinka Qardho waxay kaloo ka yimaadeen magaalada Ufayn waxay kaloo ka yimaadeen magaalada Ayn waxaa kaloo jooga dadkii u tababarnaa arrimaha doorashooyinka iyo shaqooyinka ka shaqaynayay waxaa kaloo jooga dhammaan daneeyayaashii bulshada rayidka ah ee doorashada ka shaqaynayay waxay nala joogta BDRC waxaa nala jooga daladii dhalinyarada waxaa nala jooga hay'adda Diikooniya iyo sidoo kale mas'uuliyiinta ugu horeeya wasiir Aamina iyo Guuleed Saalax gudoomiyaha guddiga doorashooyinka gudoomiyaha hay'adda bulshada rayidka Mudane Faysal iyo xogayaha guud ee TPEC dhammaantood waxay halka maanta u joogaan inay idin daahfuraan idin kala qayb galaan idin soo dhaweeyaan dhammaan goobjoogayaasha halkan maanta shirku uga furmi doono waxaan rabaa inaan marka koowaad ku soo dhaweeyo gudoomiyaha hay'adda bulshada rayidka Bunsa Mudane Faysal gudoomiye soo dhaweeyo bismillah wasiirka wasaaradda haweenka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka xogayaha guddiga doorashooyinka madaxa hay'adda Diikooniya dhammaan wakiilka socda BDRC gudoomiyaha Bayaan iyo dhammaan qaybaha halkan fadhiya goobjoogayaasha maxalliga ah iyo waliyaasha iyo dhammaan daneeyaasha dowladda ahayd macnaha khaasatan bulshada rayidka dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh maanta waa maalin weyn riyo lagu riyoonaysa 22 sano in maanta aan rajaynayno inuu rumood ilaahay dinkiis oo 25 bisha dadku u dhaqaaqi doonaan inay codeeyaan si toos ah oo qof iyo cod ah oo taasoo ugu horreysay 50 sano la soo dhaafan ka dhacay deegaankan waxa maanta ay tahay ujeedka ugu halkan la sugu yimid tababarka iyo maanta nidaamka iyo xeerarka aad ku korjoogteen doonaan doorashada ayadoo ugu muhiimsan tahay dhexdhexaadnimo inaydan macnaha waxyaabaha laydin baro oo wixii laydinka xaramayna aydan macnaha ama laydin ogolayna aydan suubin wixii shaqadiina oo la farna qabsataan muhiimaddu tahay inaad soo tabisaan waxyaabaha jira halka waxaan la fadhiyo wasiirada haweenka iyadoo ay jirto laba qayb aan ka soo bilan Qardho oo santarka laga maamulo doono doorashooyinka qaybta ugu weyn waa qaybta la socodka hawlaha doorashooyinka oo ay ku soo dhici doonaan xogtaas oo dirtaan qayb labaad oo waxaa jirta la socodka xadgudubyada haweenka oo ay ku soo dhici doonaan xogta haweenka ma aha macnaha xadgudubka dadka qaarkood kufsi kaliya waxa weeye haddii loo diido goobtii ay gabadhu ka codeyn lahayd haddii kaarka macnaha kaarkeeda loo qasqashaado haddii macnaha ay ugu weysho awood waxyaabaha xaq u lahayd iyo waxyaabo badan oo tiro badan oo dhaca xilliyada doorashada maanta doorashada gudoomiyaad baa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan siiyo wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta arrimaha qoyska mudane wasiir Aamina wasiir soo dhawo waxay inoo tahay maanta fursad dahabi ah oo maanta aynu cagta saarnay nidaamkii dimuqraadiyadda oo Puntland muddo dheer ku taamaysay dastuurkeedana qayb ka ahaa in doorashadii ugu horreysay kadib ay noqoto doorasho xulasho oo sidaan oo kale dadku ay u doortaan dadka matalaya alxamdulillah waxaa maanta farxad inoo ah iyo guul Puntland in maalinna jadwalka iyo sida lagu talagalay doorashadu inay ku socoto saddexdan degmo hor u dhaca ah aan waxba iska bedelin taas waxaa lagu gaaray isku tashi waxaa lagu gaaray inay ka go'an tahay dowladda Puntland in nidaamkan uu hirgalo qof walba oo inagayna ka mid ah ha ahaado mas'uul dowladeed ha ahaado guddiga doorashooyinka ha ahaado guddiyada ururada xisbiyada ururada siyaasadeed cid walba waxaa laga rabaa doorkooda uga aadan inay Puntland doorasho xor oo xalaal oo la isku halayn karo ay ka dhacdo inaad kaalinta uga aadan aad ka qaataan idinka dhalinyaradan tirada badan oo maasha Allah quruxda badan oo ah haldoorkii iyo aqoon-yahankii ee waddanka waxaa laydinka rabaa nidaamkan inaad qayb ka noqotaan aad noqotaan dad dhexdhexaada doorashadu waa inay ku cusub tahay sida gudoomiyuhu sheegay oo inagoo dhan baa waxayna ku cusub nidaamkan asxaabta badan
inaysan ina ka noqon dagaal afka ah iyo nin jeclaysi laakiin code of conduct-gan aad saxiixdeen iyo maaragtay checklistiga iyo waxa laydinka baahan yahay inuu siduu yahay u hirgalo waxay qayb ka noqon doontaa ilmaha dhalan doona mustaqbalkoodii bay noqon doontaa waxay noqon doontaa inay waddanku ka gudbo nidaamkan hadda aynu wax badan ka cabanayno oo qabaliga ah oo la isku soo dooranayo maaragtay reernimada tan waxaa laydinka rabaa kaalinta uga aadan cid walba inay ka qaadato inaad si dhaba uga shaqaysaan inaynan ku dhex milmin ururada iyo maaragtay urur gooniya aynaan fiirin cid walba oo sagaalka urur ka mid ah iyo cid walba oo bulshada ka mid ah oo maaragtay doorashadu nidaamkii ay ku socotay aan ku socon inaad ribood garaysaan gabdhaha si gooniya maadaama ay duruufo khaasa leeyihiin oo haddaan filayo gabdhuhu waxay ka yihiin boqolkiiba dabcan in ka badan 46 ku dhow 47 codeeya baa ka qaybgelaya codeyn doona gabdhuhuna boqolkiiba 51 bay ka yihiin waad arki doontaa arki kartaano tirada intaa la eg oo qaarkood miyay joogaan oo distance iyo meelo badan soconayaan hadday rabaan oo maaragtay nidaamka uu ku cusub yahay wax badan baa waxay u baahan yihiin in la fiiriyo xaaladooda si khaasa loo fiiriyo dhibaatooyinka ay la kulmi karaan shaqaaqooyinka ka dhalan kara iyadana laba dhinacba waa laga leeyahay laba ujeedo inaynu wax ka barano aragno maxaa dhici kara oo maaragtay caqabadaha ku iman kara gabdhaha si khaasa iyo in iyaga laftigooda la caawiyo in sport marka uu warku soo dhaco taageerada ay u baahan tahay gabadhaas isla markiiba in la siiyo tan marka waxaa la rabaa iyadana si wanaagsan in looga howlgalo dabcan sessionkeena ama tababarkeena labada maalmood soconaya technical buu noqonayaa iyo in la kala qaato axdi la kala garo oo habdhaqanka laga rabo qofka observerka ah iyadana la kala saxiixdo intaasoo dhan waa waajibaad idin sugaya iyo in ka badanba insha allah reer puntland rajadooda way ka dhabayn doonaan kulligeenna waxaynu noqonaynaa kuwo ka shaqeeya in doorasho nabadgelyo oo si hore ku dhacda ay waddanka inoo ka hirgasho aad baad u mahadsantihiin kelmadda furitaanku intaa igama badanayso aad baan u soo dhaweynayaa dhallinyaradani maanta isbeddel la taaban karo inay qayb ka noqdaan dhammaantiinna guulaysta ilaahay idankii mudane wasiir waa mahadsan tahay mas-uuliyiinta waxaan u horumarinay waxay leeyihiin mid walba ilaa 2 shir oo kale shaqooyinka badan marka waxaan rabaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka runtii shirar iyo shaqo badan u yaaliin mudane guuleed saalax oo runtii munaasabadan inuu si official u furo kelmadiisana ka dhiibto bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wasiir aamino iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale iyo goobjoogayaasha mise korjoogtayaasha wey korjoogtada ahaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa muusa oo uu guddoominayo faysal iyo maamulkeeda kale iyo dhammaan howlwadanadeeda soo agaasimay tababarkan iyo isku dubaridka korjoogtada doorashada oo ka kala yimi 3 degmo dhalinyaro u badan yihiin maasha allah oo xoog iyo waxaan maleynayaan firfircooni badan baa lagu soo doortay waa hal maalin doorashadu laakiin waa maalin dheer oo qofku uu cunayo energy badan uu gubayo marka maalin lagu matali karo maalmaha kaloo caadiga ah maaha marka waxaan rajaynayaa waxaa lagu soo doortay waa inaad hawshaas dhabar adaygu leedihiin gabdhaha u badan tihiin baan u malaynayaa dhabar adag fiican u leedihiin ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu idin fududeeyo hawshiina tababarkan aad si fiican u qaadataan oo aad ka faa'iidaysataan sababtaa waxa aad berito aad ku shaqaynaysaan iyo wax cilmiga halkan aad ka barataan waa fursad aad hesheen doorashadii u horeysay qof iyo codah oo intaad jirteen intaa ka fadhidaay ay la qaban doono inaad korjoogto ka ahaataan oo korjoogtada doorasha ugu waaweyn qaybaha ku leh weeye doorashada sababta waxay ilaalinayaan oo ay kormeerayaan oo la soconayaan waa sida ku dhacayaan oo dhan bay maaragtay hadhowna warbixin baa ka soo saari doontaan wixii saxmay iyo wixii maaragtay aan saxmin iyo waxaas oo dhan macnaheedu maaha inaad xumaan keliya raadisaan ha isku dhex khaldinina marka wax korjoogtaynaysid macnaheedu xumaan keliya haddaa hataa waxba weeye wax baarbaar iyo isku gelin laakiin wixii khaldan oo aragtid ama wixii maaragtay aan munaasab ahayn aragtid soo
soo report kale oo soo sheeg oo maaragtay ha ka gaban haddaan waxba weydidna waxa baarbaarin macnaheedu maaha dadka in badan baa korjoogtada xataa kuwa caalamiga ah imaanayaan qofku waxa laga yaabaa iska aamin haddaadan wax sheegin macnaheedu waxa maa soo qaban weeye marka wixii aad soo aragtay fiican iyo wixii aad soo aragtay laga fiicnaa intaba soo gudbi kalsooni badan baan ku qabnaa ilaahay idinkii inaad waxaynu wada leenahay in dadku ay doortaan dadkii matalayay waa 22 sano riya aynu sugaynay marka inaan hirgashanno oo qolowla markaa kaalinteeda ka qaadatahay oo idinkuna aad qaadataan kaalinta korjoogtada maanta laydin soo xoriyay innagoo dhan bay waxay noo tahay guul dhammaantiin hadduu ilaahay qolowla meel bay ka haysaa annagu maamulkii baan kaga jirnaa meel iyo beri waxaa laga yaabaa inaan korjoogtada kusoo biirno qaybtayo idina aad maaragtay maamul kusoo biirtaan meesha marka saa yani caalamku saykankaas waa isba bedelayaa marka in qolowla meesheeda maanta ay uruujiso ay sida ugu fiican ay uga soo baxdo shaqadeeda taasna marka waxay keenaysaa in shaqadii ay loo wada fiicnaato ilaahay idinkiisa waxaa idin rajeynayaa guul baa idin rajeynayaa xaggaynu isku arki doonaa tiyamkiina korjoogtada ah shaqo wanaagsan aad iyo aad u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu gudoomiye waa mahadsan tahay wasiirka iyo guleed saalax shaqay ku degdegsanaya marka iyo xogeyaha waan fasaxaynaa waxaan rabaa inaan u yeero muno maxamed madaxa hay'adda dikooniya soomaaliya muna soo dhowo bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum dhammaan korjoogtada kale madaxda dowladda waa naga tageen laakiin waxaan salaamayaa dhammaan buusa shaqaalaheeda iyo dalada dhalinyarada loolibaana kala joogo hay-adaha maxalliga oo iyagana nala jooga iyo dhammaan korjoogtada maanta meeshaan isugu timaaday oo tababarkooda lagu furayo waxaan u malaynayaa de waxa weeye safar dheer baan soo galnay energy dheer oo magaraysaa aynu ku bixinay inaynu maanta oo kala gaarno maanta oo qof kasta uu dooranayo qofka uu rabo ama xisbiga uu rabo waxay ahayd hawl laga wada shaqaynayay muddadii intii puntland la dhisay waxaa jiray commission buu bedelayay dowlad bay bedelaysay hanaan bay waday qorshay soo sameynaysay marka qorshihiiba maanta miradhalkiisa aynu garanaysaa aynu guranaynaa marka aad iyo aad bay dowladda puntland khaasatan dowladda hadda jirta aan ugu mahad celinayaa enerjiga badan ay gelisay iyo xoogga iyo commitmentiga ay muujisay inay ka maradhaliso qorshaha inaan ka gudubno isheeg lagu soo dooranayay dadka oo aanu gaarno inaan maanta qof iyo hal cod la gaaro oo qorshaha kan aan ugu gudubno democratizationka ah intaas waxaa i dheer inaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo tababarkan lagu tababarayo dadka korjoogtooyin doona khaasatan kuwa maxalliga ah oo dhalinyaro u badan maasha allah khaasatan ay ku jiraan dumar oo magaranaysaa aada u tiro badan iyagana taasna waxay sheegaysaa in magaranaysaa waxyaalaha muuqda iyo wixii aan muuqaninba in si fiican loogu soo wada jawaabo oo si fiican magaranaysaa loo soo gudbiyo waxyaalaha aynu ku aragno meesha siduu sheegaya gudoomiyaha wixii xunxun mooyaane xataa wixii fiican aynu aragnay waxaynu noqonaynaa kuwa ka jawaaba ama soo gudbiya marka waxaan inii rajeynayaa insha allah inaad ilaahay inala garab galo shaqadan adag aad qabateen shaqo adag weeye waa mas-uuliyad weeye inaad dhexdhexaad ka noqoto xataa hadduu walaasha ama walaalka uu tartamayo ama xataa xisbi aad taageersantahay qalbiga ka taageersantahay hadda uu tartamayo inaad dhexdhexaad ka noqoto inaad axdigii aad saxiixday shuruucyadii lagugu tababaray inaad noqoto qof comply gareeya oo aanan ka gudbin waa shaqo aada u dheer waa shaqo oo commitment weyn u baahan waa hal maalin ayaa magaranaysaa shaqada qabanaysaan insha allah markii election ku socdo laakiin waxaa noqon doontaa dad reference u noqda puntland markii la aadayo 47 harta degmo doorashooyinkooda idinka ayaa waxaa noqonaysaan dadkii inta badan dadka guidancega siin lahaa dadkii magaranaysaa khibradda dadka la wadaagi lahaa marka waxaa idinka rajeynaya insha allah inaad shaqadaas si fiican u gudataan idin waan idinku duceynayna insha allah idinkana inaad magaranaysaa aada hawsha ilaahay oo inila garab galo ujeedada keliya waxay ahayd maanta inaan openingka ka qayb qaato oo magaranaysaa aan ini soo dhaweyno oo inila furno tababarka insha allah waxaan isku arki doonaa fiiliga oo shaqadiina iyo waxa dhan say u socon doonaan fiili annaga kulen waa imaanayna insha allah waxaan inii rajeynayaa khayr iyo tababar wanaagsan aad baa umahadsan waa mahadsantahay min waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo axmed cabdilaahi oo ka socda hay-adda SDG Center soo dhawaa xarunta SDGs waxay ka shaqeysaa dimuqraadiyadeynta iyo arrimaha doorashooyinka waxaana muddooyinkii ugu dambeysay ku hawlanay sidii taageero farsamo
ay uga geysan lahayd dadaalka muddada dheer soo socday ee hogaaminaysay dowladda iyo dadka reer Puntland ay ahaa sidii nidaamka dimuqraadiyadeynta ee Puntland loo kobcin lahaa. waxaanu tababaro kala duwan oo farsamo siinay ururada siyaasadda ee Puntland. saaka waxaa sidoo kale socda tababar la siinayo haweenka murashaxiinta ah ee u tartamaya doorashooyinka soo socda ee Puntland. waxaa sidoo kale aanu kala shaqeynaynaa dalada Bulsa tababarkan maanta la siinayo korjoogtada doorashooyinka Puntland. waxaan rajaynaynaa in insha allahu tacaala processkan soo socday muddada dheer guul inoogu dhammaan doono haddii la yidhaahdo. mas-uuliyiin fara badan oo ka tirsan xaruntu waxay hore uga soo shaqeeyeen korjoogtiinta doorashooyinka wadamo badan oo ku yaala geeska Africa. xaruntu waxay xafiisyo ku leedahay Ethiopia, Hargeysa, Garowe iyo Muqdisho. aad baad mahadsantihiin. أنت أحمد عبد الله waxaan soo dhaweynayaa Cabdiraxmaan Saciid Bile oo ka socda hay'adda ama xarunta BDRC. runtii waxaan marka ugu horreysay waxaan mahadcelinayaa hay-adda Bunsa oo soo qabanqaabisay tababarkan shaqo aad ballaaran ka qabatay sidii ay u hirgeli lahayd doorashooyinka Puntland. marka xigta waxaan bogaadinayaa ururka doorashooyinka ku-meelgaarka ee Puntland Tibet oo isaguna runtii qabtay shaqo ballaaran 2 bilood 3 bilood ka hor ma aysan jirin cidna ma aysan aaminsan in Puntland ka dhici doonto doorashooyin xitaa dadka ka shaqeynayay sababtuna waxay ahayd iyadoo 2 jeer oo hore la isku dayay in la qabto doorashooyin ayna fashilmeen muddo 20 sannadood. marka waa guul soo heertay dadka reer Puntland in ma 4 casho ka bacdi dadku ay u dareeri doonaan sidii qof kasta u dhiiban lahaa codkiisa ugu soo dooran lahaa xisbigii matala lahaa. annaga ka BDRC ahaan runtii waxay noo tahay farxad weyn. hay-adda BDRC oo la aasaasay 1999 waa xilligii la sameeyey Puntland. shaqada ugu ballaaran ee BDRC ay qabatay waxay ahayd 2 qaybood. qayb waxay ahayd oo ay ka qabanaysa dhinaca governance-ga markii Puntland la aasaasay oo nidaamkeeda lagu saleeyay qabaliga sidii nidaamkaas u shaqeyn lahaa. nidaamkaas u shaqeyn lahaa 2 arrimood bay ahayd markaa in dadka Puntland waa dhistay ay ku noolaan nabadgelyo oo ay nabad helaan. Puntland BDRC shaqo aad ballaaran bay ka qabatay. sidoo kale sidii nidaamkii qabaliga ahaa uu noqon lahaa nidaam isaguna shaqeeya oo maamul ah wada ogtihiin daadejinta maamulka ama centralization-ka. BDRC waxay ahayd ugu horreysay oo inta badan taageeraysa sidii loo dhisi lahaa maxaa la yidhahdaa koonsulada degmooyinka ee Puntland. waxaa arrintaa garab socota oo markasta ahayd ugu jirtay sidii mar uun awoodda loogu celin lahaa dadka reer Puntland oo dadku ay iyagu soo dooran lahaayeen ciddii matala lahayd. taasna waa dimuqraadiyadda. waxay soo saareen baaris fara badan oo ilaa iyo muddo 12 sannadood. maanta waxaa marka farxad gooniya noo ah inaanu goobjoog ka noqono iyada oo la furayo tababarkii goobjoogayaashii korjoogteyn lahaa doorashada dhacaysa 25 bishan October. mudane Norway doorashada marka laga hadlayo waa 2 qaybood. qayb waa qabashada doorashada, qaybna waa doorashadaas inay u dhacday sidii loogu talagalay. inta badan taa dadka korjoogtada ka ah ama ha noqdeen caalami ama ha noqdeen kuwo local ah ee bulshada rayidka ah baa sheegta. idinka maanta maanta ma joogtaan maxaa la yidhahdaa ururo caalamiya iyo wadamo goobjoogayaal ka socda, laakiin idinka waxaa matalaysaan 2 qayboodba, kuwii bulshada rayidka ahaa iyo kuwii caalamiga ah. maxaa la idinka baahaya marka? waxaa loo baahayaa maanta maadaama doorashadu ayna ku cusub tahay oo nidaam cusub aan u gudbayno oo wax badan laga aqoon oo dadka in badan oo laga yaabo aysan wacyigelin fara badan ka haysan. waxaa la rabaa in shaqada aad qabanaysaan ay noqoto midii aad documente garaysaan experience ay u noqoto shaqooyinka la qaban doono oo dhan insha allahu tacaala. sidoo kale waxaa loo baahanyahay inaad noqotaan dhexdhexaad oo aad markasta u istaagtaan sidii doorashadaasu iyada oo lilaahi ay ku dhici lahayd idinkuna aad soo ribood garan lahaydeen wax kasta oo meeshaa ka dhaca idinkoo weliba xoogga saaraya sidii wax loo sixraa. taana waa loo baahanya insha allah. waxaan idin rajaynayaa inaad guul ka gaari doontaan insha allah. aad ku guulaystaan shaqadan oo aad bilaabaysaan hadda oo shaqadan ku cusub ah. ilaahayna ha idin fududeeyo. gudoomiyaha dalada dhalinyarada Puntland. farxad gaar ay tahay maanta inaan goobjoog ka ahaado doorashadii ugu horreysay dimuqraadiyeysiga oo waddan fooda oo Puntland ka bilaabanaysa rajo 23 sano la dhowrayay. ilaahay waxaan ka rajaynayaa si nabad ah inuu noogu dhameeyo.
intaa markaan ka tago waxaa aniga farxad gaar ay gelinaysa intan oo dhalinyaro ah oo kor joogtaynaysa 3 degmo doorashadeed taasina waxay dhaweynaysaa inaynu dadka Puntland ama wadda Soomaaliyeed aynu nahay in ka badan 80% waa mustaqbalkeennii waxay noo tahay yididiilo degmooyinka kalena inay ku daydaan 3 degmo hadday noo hirgalaan dhalinyarada Puntland waxay u diyaarsan yihiin dad waxbartay shaqo diyaar oo khibrad leh waxaan rabnaa inaan kasoo jawaabno arrintaasi guul oo qurux badan aynu qabanno oo si lilaahi ilaahay ugu ogyahay maanta haddii aynu arrintaa guul ka keenno waxaynu guul u nahay dhammaan dhalinyarada Puntland in lagu aamino sida 3 degmo laynoogu aaminay 47 degmo ee kale ay la rajeynayay doorashooyinkan inay ka dhacaan sidoo kale waxaa jiri doonta iyadana in la kor joogteeyo doorashooyinka Soomaaliya oo dhawaan bilaaban doona intaa markii laga tago Puntland inta badan waxay sheegataa hooyada federaalka waxayna maanta markhaati uga nahay haddaynu bilaabnay Soomaaliya markii ugu horeysay iyadoon cidna laga saarin qof kasta codkiisa iyo xaqiisa uu wax ku dooranayo muddo 50 sano ka bacdi aynu bilownay waxaan rajaynaynaa khibradda inaynu la wanaagno gobollada kale aysan weli gaarin aad baad u mahadsantihiin guul baan idin rajaynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh